كلنا هاي واحد محاس كم مشاد متبان كم معمول دون تهدي علينا ماشان دت كتشوجة كسو غيب قالي وادت رهير شبه الله وادت ديجان كيسو أو هاي محاس وهاي كعبان عيان حقوق دي أي كل هايين ديجان ما دولة قبلات كهير شبه اللي أما دقمة محاسات أي كواين وحبلنا واقعودين هذا كورنا مسورة جلين ما أنتنا وحي نجتاج أنت هاي كم الضمبايس وحان ربنا قلادة قلن كهيسة ومدحوينه أهريو وسير كورونا كحجو وساردي أرمها جودها هي مسؤولية دكال الدوان حل دبان نذا نقوم مثلا كرسي جاهير شبيلة كل دمانتو ديني دجهود فران ويا هي وحان ربنا وحال لقد دساها اللي يري محاس قوله الديغان كان لقد دسا قوله الديغان كان وحبان كلنا هاي أبترسان هير شبيلنا هاي دقمة محاسات بان كم منا هاي دتك حقوق ذا كلها كم منا هاي وحان ربنا ينان حقوق ذا نكهلنا من الدون إنه وحينان لهين أنو ما الدون إنه وحينان لهين وحان ربنا محاس وحال ميدا دقمة متبان وهير شبيلة لبدو وهيران دقمة متبان markii gudaheeda la yiraahdo qaaska si ah dad baa degan maxaasna dad degan daafahana waa la isla wada degan yahay مثل markaan ka soo qaado ceelgud oo kale luuf daajo oo kale wara dhuumale Umar Sheekh Meeracad Miiraji Baalle laan cadaad waa soo koobay waxay ka mid tahay deegaanka maxaas hoostaga hees madhooy coomaad bacda beer jديد ماشي اللي راه تكرالنا waxay kamid tahay deegaanka mataban hoostaga deegaan walba dadka hoostagaana xuquuqdiisa iska leh halna dhici ma xaq soorna maaha in deegaanka mataban inta aan ka soo tiriyay nimanka walaalaheenu ka degan yihiin ay mataban ku xisaabtamaan annaga deegaanka aan maxaas ka deganahana inta aan ka soo sheegno ka deganahana xisaabkeeda ay diidaan madaxweynaha cali guudlaawo maamulkaas maanta dawladda jirta ee maamul goboleedka hirshabeellana qalinkiisa haya iyo wasiirka arrimaha gudaha karoonana ay arrinkaas fiira gaar u yeela waayaan waxaan isleeyahay wax qaaniya maaha wax dhacay yaqaana maaha waxaan rabnaa wax badan aan eraga soo celcelin ma tabaaya maxaasna waa la wada degan yahay geela wuxuu uri ninkii mahasha hashayda ka caanayaro mase laba halaadaan meesha ka irmaanay war madaxweyne geela inaad noo kala listaan oo niman walbaahiba aysan isku gardaroon dhexgal bulsho iyo isla deg iyo wax wada cun iyo wax wada yeelasho ayaan u toogayno ku xisaabtamaynaa inaan helno oo aan ka helno degmada maxaaseed haddeer waxaan ka sheekahaynaa in dhismihii golo deegaanka la samaynayo waxaan leenahay haddaanan qaybteenna ka helin waa dulun waxaan leenahay nimanka qalinka hayo karoona hadda waxaan maqlaynaa inuu maxaas joogo golo deegaanna ka dhisa deegaankan maxaas ka midana uusan dad uga yeerin oo annaga xaggeena waxaan leenahay karoona yaan lagu qaldin yaan dad aan daacadahayn oo qalin hayne af Soomaaligiisa wax ku fogeynahay yuusan wada qaldan ku marsiinin waxaan ku leenahay waxaad maxaas ku maamushaad matabaana ku maamuli doontaa hadii la yiraahdo qalinkana saaka adaa hay golaha deegaankana ninka inuu dhisal rabo matabaana u tago maxaasna hadeeru joogahay adiga waay madaxweynaha waxaan leenahay baashu dhinaca ay u raran tahay sida noo muuqatay dhinaca ay u raran tahay ku aqbalin ka cadli samay ka garsoor waxaan rabnaa inaan annaga xaquuqdeena helno annagu qola aan xaquuqdeeda u diidaynahay ma jirto laakiin haddaan xaquuqdeena weyno qola annaga gurigeena xaquuq u soo doonahay ma jirto xaqiiqatan waa saas warama aan geela kala maalno karoona wada qalinka haya madaxweynuhuna arinta adoo ku xil saaray adaana hadeer ku jira matabaan iyo meesha la yiraahdo maxaas u garsoor maxaas kaliya maaha warkeenu maxaas iyo matabaan waa laba mataana
qolana gudahay ka degantaa qolana daafay ka degantaa isku nuuc in lagu maamulaan rabnaa annagu ha suurogeli meeha ha kullu go'in in matabaana shir ka noqdo maxaa suna qolo gaar u noqoto ma dhacayso waa ka soo horjeednaa ma ogolin taa haddaan ka soo laabto deegaanku caafimaad uu leeyahay waxbarasho uu leeyahay wuxuu leeyahay waxqabadka hay-aduhu dadka ay u qabtaan baahan oo tabaalaysan intaba waan u baahanna yaan ku leenahay waaye dowladda hirshabeellaan ku leenahay galmudug kuma lihin federaal hirshabeellaa ka sokeeya waxaan rabnaa gooladda dhexe isbaarada taagan in laga wareejiyo xaquuqda aan leenahana aan helno day waxbarasho tahay inaan helno macallimaynaan rabnaa dhismaan rabnaa macallimaynaa hiiraan tartan u gashay macallimayntii tartanka u gashay waxaa laga wada warqabaa inay hal reer isku koobeen deegaanka hiiraan oo dhan hal reeraa isku kooban sax maaha cadaalad maaha in la aqbalaan sax ahayn in warkaa la qaataan sax ahayn in dowladda musuq maasuqa la soo hoosgelinaa ay indhadheer u yeelataan rabnaa war waxaan rabnaa waxbarashada xaquuqdeedii war waxaan rabnaa caafimaadka xaquuqdiisii war waxaan rabnaa dadka deegaanka xaquuqda daruuriga ahoo dadku ay isticmaalaan waxaan ku leenna war waxaan rabnaa golaha deegaanka dhismaha qaybta aan ku leenna war annaga hal shaaya ma doonayno laba ma doonayno saddex ma doonayno afar ma doonayno xaaladaha aas-aasigaa oo ama xaquuqda dadku ku intifaacaa ama mas-uuliyadda la wadaagaa intaba abtirisna hirshabeellaan ku nahay deegaan ahaanna waxaan ka tirsannahay maxaas waxaan rabnaa inaan xaquuqdeenna helno qofaan dulmayna ma jirto xildhibaankii annaga nagu metelaayana waana garab fadhaa maanta alxamdulillah waa joogaa xildhibaan waxaan kaa rabnaa qalinka waa nala ku dulma hadda ka hor inaan hadda kabacdi nalagu dulmin madaxweynaha inaad saaxiibtihiin waa aan ognahay saaxiibtinimadaadu hadday xaquuqdanada noo goy weyso xaggey joogtaa horta dowladda waxaa la rabaa nin walba kursiga uu ka joogo iyo mambarka uu ka joogo dadkiisa inuu ugu adeego uguna shaqeeyo deegaan badanaa ku sugaa dad badanaad mas-uul ka tahay dad badanaa ku daawanaa dad badanaa ku fiirsanaa dad badanaa ku dul taagan waxaan rabnaa sida aad deegaanka uguna dhalatay waxna aad ugu qabataa hadda ka hor waxa dhiman inaad u dhammaystirtaan rabnaa waxaan rabnaa qalinka nalagu dulma oo la ansixinaa inaad diiddo od hor istaagtaan rabnaa waa haddii saaxiibtinimada adiga madaxweynaha laynka sheega aysan dhalanteed ahayn ama annagu waxaan niyeysanaa aysan ahayn nima aniga warkaas waana badiyey badinta waxaa iga keenaa hamuunaan u qabay deegaanka in badan dhibaato mataqaanaa xaquuq diiddaa aan ku aragnay annagana waxaan rabnaa si dowladnimaa oo maamul wanaaga oo wax wada yeelashaa baashu mar xoogoo qaniinya waa jiri jirta qaniinyada markii laga gudbana waxaan wada lahaa jirnaye qaniiyada annagu waa hilmaanay reer tolkeen qaniiyada ha hilmaamaano magaalada iyo dowladnimadana yaan la geynin bahasha ayagana sidaasaan leenahay